xarun caafimaad oo ku taala magaalada Burco oo loo yaqaano xarunta daweynta caafimaadka ee Burco ayaa maanta soo gabagabaysay raashin qaybin ay ka waday ilaa 8 tuulo oo ka tirsan deegaanada gobolka Togdheer. xaruntan caafimaad oo si mutadawacnimo ah iyadoo ugu dhaqaaqday howlgalkan raashin qaybinta ayaa waxa ay deeqdan raashinta oo isugu jirta bariis iyo saliid gaarsiisay in ka badan 900 oo qoys oo ah dadka xooluhu ay ka dhamaadeen ee tuulooyinka Shashacade, Talabuur, Maxamed Ugaas, Heer, Dabaqabad, Dhoqoshay, Dhagaxdheer, Dheryalay iyo meelo kale oo kamid ah kuwaasi oo intooda badan ay hoos timaado degmooyinka Dhoqoshay, Baledhiig iyo Warcibraan. deeqdan raashinka ah ay qaybiseen xaruntan caafimaad ee Burco Medical Center ama xarunta daweynta caafimaadka ee Burco oo gaaraysa ilaa iyo 70 tan ayaa waxa ahmiyadda ugu weyn ay tahay in lagu taageero nolosha dadka danyarta ah ee reer guuraaga ah ee xooluhu kaga baxeen abaarihii istaba joogga ah ee ka dhacay deegaanada gobolka Togdheer. maamulaha xaruntan caafimaad ee Burco Medical Center ama xarunta daweynta caafimaad ee Burco iyadu deeqdaasi qaybinaysay Dr. Axmed Xaaji Xasan Cawad ayaa waxa uu ka sheegay goobihii uu deeqdaasi ka bixinayay in deeqdan oo ka soo ururiyeen dadweynaha iyo dawladda Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in loogu talagalay sidii taageero loogu geysan lahaa dadka dabaalaysan ee reer guuraaga ah kuwaasi oo ay abaaruhu saameyn kaga yeesheen xoolahooda. Dr. Axmed Xaaji Xasan ayaa waxa kale oo xuseynay dareenka lagu keenay deeqdaasi ay ka dhalatay buuriis xilqaan iyo waliba dareen naxsin oo la doonayo in loogu gargaaro dadka tabaalaysan ee gobolka Togdheer. dadkan maanta deeqadan soo gudbiyay ee wadankeena waa dad shicibka Jarmalka oo maanta way dhibaatooyinka dhacay ee wadanka oo dhan la socday abaarihii ka dhacay dad badan oo maalinkan maanta iyo wax kastaba leh in wadanka ku tabcaansan yihiin ururka iyagoo la yiraahdo Medical oo ururka demand ee dhisay ayaan waxaan la warda dadka wax loo qaban karaa xagga cuntada dhibaatada waddanka ku jirta marka way isu tageen oo waxay soo ururiyeen wixii ay maalinkan maanta ay noo heleen. sidoo kalena gudoomiyaha degmada Baledhiig Cali Faarax ayaa isaguna soo dhaweeyay deeqdaasi mar uu ka hadlayay maanta goobo kamid ah goobaha deeqdaasi lagu qaybinayay kuna tilmaamay mid baahi badan ka daboolaysa shacbiga la siiyay iyadoo qoyskiiba la siiyay deeqdaasi 25 kiilo oo bariis iyo 4 litir oo saliid ah oo loogu talagalay inay ku noolaadaan muddo bila. sidoo kalena maamulada degmooyinka Dhoqoshay iyo Warcibraan ayaa iyaguna deeqdaasi ku tilmaamay mid saameyn ku yeelanaysa dadka noloshooda gaar ahaan dadka reer guuraaga ah ay sheegeen in ay noloshoodu xilligaasi ay adag tahay isla markaana aanay jirin bayla xoolo ku filan oo dadka intooda badan ay haystaan. geesta kalena deeqdan oo noqonaysa midii ugu horeysay ee gaadha deegaanadaasi tan iyo xilliyadan dambe ayaa waxa lagu wareejiyay duqeyda deegaanadaasi kuwaasi oo iyaguna gaarsiin doona dadka saboolka ah ee loo qorsheeyay iyadoo qaar ka mid ah duqeydaasi deegaanadaasi gaar ahaan kuwa Dhoqoshay iyo Baledhiig ay ammaan weyn u jeediyeen hay'adda keentay deeqdaasi. Abubakar Cumar Aadan oo ka mid ah duqeydii deeqdaasi wareejinaysay ee ku lamaana xaruntaasi Burco Medical Center ayaa isaguna waxa uu ku amaanay xaruntaasi caafimaad dadaalka ay u gashay in la nooleeyo qoysaskaasi isla markaana baahidoodu ay noqoto buuri mid laga dabooli karo oo ay helaan buuri muddo bila waxay ku noolaadaan. dhinaca kalena isla xaruntan caafimaad ee Burco Medical Center ama xarunta daweynta caafimaad ee Burco waxay isla maanta ka dhagax dhigtay gudaha degmada Baledhiig dhismo dugsi hoose dhexe oo la doonayo in lagu kordhiyo dhismaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Baledhiig. dhagax dhigga dugsigaasi cusub oo ay kafaalo qaaday xaruntaasi daweynta caafimaadka ee Burco ayaa waxa loogu talagalay inay noqdaan qaybo cusub ama fasalo cusub oo la doonayo in lagu daro in lagu ballaariyo dugsiga hoose dhexe ee degmada Baledhiig. isagoo masiilka u sareeya xaruntaasi daweynta caafimaad Dr. Axmed Xaaji Xasan Cawad oo ku tilmaamay in ay si weyn ugu kuurgaleen xaaladdan dugsigaasi isla markaana markay arkeen baahida loo qabo ama tirada ardada ee ku sugan dugsigaasi Baledhiig ay go'aansadeen in ay ugu deeqaan sidii ay ugu dari lahaayeen qaybo cusub oo fasalo. deeqahan la gaarsiinaya deegaanadan gobolka Togdheer gaar ahaan tuulooyinkaasi ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelan doonaan nolosha dadka reer guuraaga iyadoo inta badan
iyadoo inta badan deeqaha la fidinayo lagu qaybiyo gudaha magaalooyinka. yuusuf ibraahim warsame, TV-ga qaranka, Burco.